Wacan oo wanaagsan dhammaantiin saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya. Qodobada xilligan aan idiin haynana waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay madaxweyne Xasan Sheekh oo dalab la yaab leh u soo diray xubnaha golaha mustaqbalka Soomaaliya kadib markii uu fashil ku soo dhamaaday shirkii u dhaxeeyay iyo mucaaradka oo ku dhawaaqaya go'aankooda ka dhanka ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba maxay ahaayeen ergada uu madaxweyne Xasan Sheekh u diray xubnaha mucaaradka oo saacadihii la soo dhaafay u tagay mucaaradka? Warbixin aynu idinkaga soo gudbin doonaa. Qodobada kale waxaa ka mid ah xog laga helay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo dib ugu laabanaya magaalada Kismaayo kadib burburkii shirkii Muqdisho iyo Siciid Deni oo maalmo sii joogi doona magaalada caasimadda ah si uu u muujiyo dholoto siyaasadeed oo dhanka ololaha doorashada soo socota ah. Somalilandna waxa ay ku kacaysaa arrimo yaab leh markii ay weyday cid soo labaysa aqoonsiga ay ka heshay Israa'iil iyo madaxweyne Ciro oo Mareykanka u ballan qaaday macdan inuu siinayo haddii ay ka helaan aqoonsi, iyo dowladda federaalka oo shaaca ka dhigtay inay dishay ku dhawaad xubno ka tirsan shabaab xilli la kordhiyey duqeymaha lagu beegsanayo hogaamiyaasha kooxdaasi. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku faahin doonaa barnaamijka insha Allah. Haddii aad nagu cusub tahay subscribe tan iyo ilaabin. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu soo waramayaa inuu dalab la yaab leh u soo diray xubnaha golaha mustaqbalka Soomaaliya kadib burburkii ku yimid shirkii u socday maalmahan madaxweynaha iyo weliba xubnaha golaha mustaqbalka Soomaaliya. Sidaad la socoteen shirkii shalay waxa uu ku soo dhamaaday natiijo la'aan waana lagu kala tegay, mana jirin wax tallaabooyin ah oo ku saabsan in dib la isugu soo laabanayo, taasi oo ka dhigan in markaasi shirkaas gebi ahaanba oo ay ku kala tageen labada dhinac ee madaxweynaha iyo golaha mustaqbalka Soomaaliya. Haddaba golaha mustaqbalka Soomaaliya oo ka kooban Jubbaland, Puntland iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee Muqdisho ayaa waxay doonayeen inay ka hadlaan shirka iyo sidoo kale in ay mowqifkooda caddeeyaan, soona bandhigaan waxyaabaha shirka fashiliyey iyo sidoo kaleeto waxa ay ka yeelayaan tallaabo ah oo ay markaasi qaadi doonaan. Laakiinse madaxweyne Xasan Sheekh ayaa la soo hadlay durbadiiba golaha mustaqbalka Soomaaliya, waxaana uu ka dalbaday inaysan ka hadlin arrimaha waqtina ay siiyaan ilaa iyo maanta oo markaasi Isniin ahna ay sugaan wixii markaasi ka dambeeyana ay go'aano qaadan doonaan, intaasina ay isagu ka warsugaan. Haddaba golaha mustaqbalka Soomaaliya oo xalay rabay in ay shiraan islamarkaana warmurtiyeed soo saaraan ayaa sidaasi ku joojiyey arrimahoodii, waxa ayna aqbaleen dalabkii iyo codsigii ka yimid madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, kaasi oo ku aadanaa in ay isaga ka warsugaan ilaa iyo maanta wixii markaasi ka dambeeyana ay qaadi karaan ama ay u fasaxan yihiin in ay sameeyaan tallaabooyinka iyagu ay doonayaan. Madaxweynaha ayaa la sheegay in uu markaasi ugu dambeyn laba ka mid ah saaxiibadiisii siyaasadeed erga siyaasadeed ahaan uu ugu diray golaha mustaqbalka Soomaaliya si uu uga baajiyo in golaha ay soo saaraan warmurtiyeedka madambeysa oo ay ku sheegayaan in madaxweynuhu xalkii doorashada iyo dastuurkii uu diiday hor u socodna laga gaari waayey wadahadalkii socday. Xubnahan ayaa fadhiya meel gooni ka ah halka uu fadhiga uga socday xubnaha golaha mustaqbalka Soomaaliya. Shalay kameradaha qaarkooda ayaa duubay madaxweyne Xasan Sheekh oo ku leh labo ka mid ah xubnaha golaha mustaqbalka ayaan ummadda loo sheegin in la kala tagay ilaa iyo beri iga warsuga. Labadan xubnood waxay kala yihiin wasiirka waxbarashada Faarax Cabdiqaadir iyo agaasimihii hore ee Niisa Cabdullaahi Sanbalolshe, waxayna ciyaarayaan door ay isugu dayayaan inay fariinta ergada ah ay ku qanciyaan golaha mustaqbalka. Xubnaha qaarkood ayaa qabaa in la qoro warmurtiyeed taxaddar leh oo lagu badbaadinayo shirka, in la dhaho wuxuu fashilmay oo waa la kala tegay. Macnaha xubnaha waxay doonayaan ka hor inta aysan mar kale arkin madaxweyne Xasan Sheekh in la yiraahdo shirka mar kale ayaan la kulmi doonaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo weli ma fashilmin. Waa hagaag saaxiibayaal, jawaabta madaxweynaha iyo ergada dhankooda waa xubnaha mucaaradka waxa ka soo kordho wararkeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa. Dhanka kale waxaa xogo laga helay in madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe uu qorsheynayo in maalinta Talaadada ah uu dib ugu laabto magaalada Kismaayo kadib shirka Muqdisho. Xogaha aynu helnay waxay xaqiijinayaan in madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo isagu walaac badan ka qaba ammaankiisa iyo joogitaankiisa magaalada Muqdisho in uu haatan qorsheynayo amaba uu ka fakarayo sidii uu dib ugu laaban lahaa magaalada Kismaayo ee xarunta maamulkiisa. Arrinkan ayaa waxay ku soo aadaysaa amaba ay imaanaysaa xilli shirkii u dhaxeeyay madaxweynaha iyo sidoo kaleeto xubnaha golaha mustaqbalka Soomaaliya uu burburay
amaba fashil weyn uu ku yimid. Axmed Madoobe wuxuu doonayaa inuu halkaasi tago oo uusan sii joogin magaalada Muqdisho, laakiinse dhanka kaleeto Siciid Deni madaxweynaha Puntland ayaa maalmo sii joogi doona magaalada caasimadda ah sida warbixinadu ay tilmaamayaan. Deni ayaa doonaya inuu markaasi muujiyo dhoolatus ku aadan arrimihiisa ka dhanka ah doorashooyinka 2026 maadaama uu yahay murashax. Waxa uu rabaa inuu kulamo siyaasadeed iyo sidoo kale abaabulo kala duwan uu ka sameeyo magaalada Muqdisho, markaas wixii ka dambeeyana uu dib ugu laabto magaalada Garowe. Haddaba tallaabooyin noocee ah ay qaadi karaan xubnahan haddii dib ay ugu laabtaan magaalooyinka Kismaayo? Runtii waa in ay mar kale shirro isugu yimaadaan oo ay markaasi isugu tagaan magaalada Garowe, maadaama markii hore Kismaayo lagu shiray, halkaasina ay kaga soo saaraan warar culus oo ka dhan ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxyaabaha ugu dhow ay samayn karaanna waxaa ka mid ah in ay shaaciyaan in markaasi ay qabanayaan doorashooyin gaar ah oo ka madax bannaan dowladda federaalka ee uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waana arrinta keliya ee markaasi dhaawici karta qorshaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, beesha caalamkana ay si weyn kaga hor imaan karayso oo ay u diidi karayso doorashooyin isbarbar socda amaba in la iska egdhiso maamullo markaasi kala nuuc ah. Arrintan caqabad weyn ayay ku noqon karaysaa, laakiin madaxweynaha laftirkiisa madaxweyneed ayuu haystaa. Marka madaxweyneedka uu ka dhammaado ayay xaaladdu ugu darnaan doontaa oo markaasi meel adag ay gaari doontaa, maadaama markaasi loo sheegi doono in uusan sharciyad haysanin, isla mar ahaantana loo baahan yahay in laga heshiiyo arrimaha doorashooyinka ee hortebinta leh waddanka ama dalkana horyaalla. Barnaamijkeena wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya aad la socotaan, markana aynu eegno warar arrimahaasi aad uga baxsan. Maamulka Somaliland ayaa shaaciyay inuu diyaar u yahay in Mareykanka uu la galo heshiis la xiriira kheyraadka macdanta. Wasiirka madaxtooyada Somaliland ayaa waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin inay heshiis dhanka xiriirka kheyraadka macdanta ah la galaan Mareykanka, isla markaana Washington ay u oggolaadaan saldhigyo ciidan oo ku yaala xeebaha gacanka Cadmeed. Wasiirkan u hadlay Somaliland ayaa wuxuu sheegay in Somaliland ay si dhab ah u daneynayso iskaashi istiraatiiji ah oo ay la yeelato Mareykanka. Waxa uu tilmaamay inay u furan yihiin in Mareykanka la siiyo helitaan gaar ah oo ku saabsan macdanta dalka markaasi ceegaagan, sidoo kaleetana ay diyaar u yihiin martigelinta saldhig ciidan. Wasiirkan ayaa muujiyey kalsooni uu ku qabo in wadahadalladaasi guul ku dhammaan karaan, isaga oo xusay inuu rumaysan yahay in heshiis markaasi la gaari karo. Xukuumadda uu hogaamiye Cabdiraxmaan Ciro oo iyadu markaasi weysan dal soo labeeyo aqoonsiga Israa'iil ayaa hadda ku guda jira markaasi rafashadii ugu dambeysay, isaga oo doonayo in uu meel kastaahi u galo sidii loo heli lahaa dal kale oo labaad oo markaasi aqoonsi siiya Somaliland ayaana dhibaato xoogan kala kulantay aqoonsigii ay markaasi ka heshay Israa'iil. Ugu dambeyntiina xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in ciidanka dowladda Soomaaliya bilihii lasoo dhaafay ay khaarijiyeen in ka badan 17 horjooge oo isugu jira saraakiil sarsare oo ka tirsan Shabaab. Wararkii wanaagga intaas.